سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إذا الأهانتينا ميل كستا الدنيا دعالة دكتوبتان كسو دوادا بهذا إيكي أوفيشيال haddii aad tahay markii koowaad ee aan soo booqato fadlan si xushmad leh waxaan kaaga codsanaynaa in aad subscribe saarto gambaleelka furato si aad u noqoto daawadaha ugu horeeya ee daawada muuqaalada xiisaha badan aan soo gelino kusoo dhawaada muuqaal cusub maanta muuqaalkeena muxuu ka hadlayaa hooyo Soomaaliyeed oo dhashay 5 caruur hooyo Soomaaliyeed oo ku nool magaalada Muqdisho ayaa waxay dhashay hal mar maasha Allah 5 caruur hal maaya laba ma saddex ma afar ma 5 caruur hal mar dhashay oo caafimaad qaba wayna caafimaad qabtaa wayna ladan tahay caruurtuna waa caafimaad qabaan maasha Allah waxaan leenahay horta maasha Allah alxamdulillah ilaahay hal mar ku wasiiyay ayaa mahad iskale inta haysanina Allah si caruurtu waa farxad muddo hadda laga joogo dhowr maalin 3-4 waxay tahayba ayay dhacday qisadan waxay ka dhacday Muqdisho hooyo xaamilo ah oo 7 bilood ku jirta bishii 7aad waxay dareentay xanuun iyo culays aad iyo aad u ballaaran sida aan ka soo xiganay wariyaashii la kulmay maamada iyo takhaatiirtii oo qaliinkaas ama fooshaas ama dhalmadaas ka qayb qaadatay wariyaashii takhaatiirta la kulmay hooyada horta way xanuunsatay culays badan ay dareentay inay lacag ama qaadaye la iska saar haaba ku hooyada marka hore alxamdulillah uray lahayd 7 bilood markay marayso ayaa waxay dareentay xanuun badan iyo culays badan oo xadaafa oo ay u dulqaadan weyso aad iyo aad u dhibay kadib way baxday isbitaalkay tagtay isbitaalka la geeyna waxay tahay isbitaalkii Digfer la dhihi jiray oo haddana loo bixiyay madaxweynaha Turkiga lagu magacaabo Erdogan Digfer waaya isbitaalkaas ayay tagtay hooyadii markay isbitaalka tagtay oo la fiiriyay oo la baaray waxa la ogaaday dhakhtarkii uu ogaaday 5 caruur inay caloosh ku wato 5 caruur oo bishii 7aad ay uurkaasna leedahay takhaatiirtii ay soo yeertay waa la soo wacday waxa la dhahay xanuunkan iyo culayskan badan oo siyaadada ah ma sii wadi kartid waa in adiga iyo caruurta Ilaah wax badbaadiyo leedin kala badbaadiya oo operation lagu sameeyo qaliin alxamdulillah waa lagu guuleystay takhaatiirtii ka qayb qaadatay takhaatiirtii aad iyo aad garab weyn ka qaadatay takhaatiir Soomaali takhaatiirta meesha ka shaqeynaysay 5 caruur hal mar ayay dhashay kan soo qabo 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 wali gabdho Ilaahay isugu daray waa nimcad Ilaahay waa nimcad Rabbi wali laakiin aniga ma maqlin hooyo Soomaaliyeed dalkii dibadda meeshii joogto 5 caruur hal mar dhashay hooyo 2 dhashay waa maqlay mataana waa arkay hooyo 3 dhashay xataa waa la sheegay inkastoo aniga aan arag on maqlay bas laakiin waa hooyadii ugu horeysay oo 5 caruur hal mar wada dhashay iskoorkaas uu yaal maamada ma sha Allah kadib markay takhaatiirtii ama beejka ay leeyihiin isbitaalka Erdogan ama xarunta caafimaadka ee Turkishka ayay soo dhigeen Facebooka takhaatiirtii oo saas ku wada hayso qaliinkii waxaas markaas ka qayb galay oo gacmahooda dhiig ku yaal oo saas dhaysa ka soo qayb gashay ayaa sawirada soo dhigay kadib waxa uu tagay wariyaashii magaalada Muqdisho ku sugnaa si ay ula socdaan arintan yaab kala oo mar la araga meesha ka dhacday run ibeen waxay ka tahayba way u tageen hooyadii la kulmeen way soo arkeen laakiin fiidiyoo lagama soo duubin hooyada ayaa codsatay in caruurtaas masaakiinta yar yarka Ilaahay uu siiyo Ilaahay ugu deeqay oo hadda 7 bilood ku dhashay oo dhala ku wada jir dhala la geliyay waa ogtiin 7 bilood markuu ku dhasho hawada uma adkeysan karo dhala la gelinaya ilaa 8 bil 9 bil uu ka gaaro kadib waa laga soo bixinayaa waxay dhacday hooyadii ayadii xaajigeeda markay isla hadleen wax fiidiyoo inaan laga duubin wariyaash oo imaanayna shuruud waxay ugu dhigtay fiidiyooyada caruurta ay dhashay in aan social media la geyn hooyada oo ku nool Muqdisho oo caafimaad qabta oo wali caruurtii ayada isbitaalka ay ku jiraan ay caafimaad qabaan oo dhalada ay ku jiraan iyo wadaadka ama aabaha caruurta dhalay oo ku sugan South Africa oo wada taqaaniin Soomaali badan dukaamada looga gubay Soomaali badan loogu dilay Ilaahay ka badbaadiyay cadawga
dad badan dhalinyaro badan oo aqaano oo reer Madiina ahaa ayaa lagu baabiiyey iyo intii Soomaaliya oo dhanba dukaamadooda la dhacay ayagii la dilay nin dhan oo qoyskii u shaqeynayay ciddii familka hooyada xaaska oo dhan soo biilay la dilay dukaamadii laga dhacay aabi South Africa ku jira aabi mar la xiriiray asaga xataa wuxuu sheegay in uusan u ogoleen caruurtiisa social media iyo familkiisa taasoo noqotay arin aad iyo aad loogu farxo arin aad iyo aad u wanaagsan waayo dad badan oo arkaysa caruurtii yar yar waxyaabo munaasab ah social media